marka labaad waxaan doonayaa halkan uga mahadnaqo hay'adda DRC oo muddo 7 sanadood mashruucan lacagta maalgelinta ah ee dadku isku wareejinayaan ganacsiga ah ka waday degmada Salaxley waxyaabo badan oo wax qabad fara badan degmada ka qabtay haday baraagii tahay haday farsamada gacanta loo qalin jabinay tahay haday cagafiyadii tahay haddii ay tahay 170 qof oo dadkii naafada dadkii faaligu ku dhacay dadkii baarleyska ahaa oo $130 ay siiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qodobka DRC waxa weeyaan hay'adda kaliya si joogto ah uga howlgasha degmada Salaxley waan uga mahad celinaynaa runtii DRC hadda waxaan ka soo rawaxay imaka caws ay beerisay DRC ku beerisay degmada maadaama ay maanta tahay maalinta calafka xooluhu meelna aan laga heli karin degmada halkan waxaan uga mahad celinayaa hay'adda DRC oo muddooyinkii dambe in degmada aad ula shaqeysay awalan ilaahay baa mahad leh ilaahay baan mahadnaqaynaa marka labaad waxaan doonayaa halkan uga mahadnaqo hay'adda DRC oo muddo 7 sanadood mashruucan lacagta maalgelinta ah ee dadku isku wareejinayaan ganacsiga ah ka waday degmada Salaxley baan ugu mahadnaqayaa hay'adda DRC marka labaad hay'adda DRC kulay qaybaha kala duwan ee degmada Salaxley bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Salaxley ku dhaqan siyaabo kala duwan bay u caawisaa haday wax qabad noqoto haday wax barasho noqoto haday siyaabo kala badan ba noqotoba haday noqoto xaqii beeraha haday noqoto xaqan ganacsiga lacagta wareegaysa kulay hawlo far badan bay degmada ka haysaa hay'adda DRC tan iyo intii ay Soomaaliland deganayna si joogto ah uga hawlgalisay degmada Salaxley aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxa kale oo ku daray laaun hay'adda DRC inay xaalad abaareed oo adag bay imika lagu jiraa biyo dhaan baa jira calafka xooluhu ma jiro waxaan kale oo baaq u diray hay'adda DRC inay mashaariicii hore ay degmada uga wadeynay kordhiso xilligan abaaraha laftikooda ay ku salayso wax qabadkeeda oo dadku way abaaraysan yihiin xoolo dhaqatada ma jiraan biyo iyo baad iyo raashin toona marka baaqan halkan uga diray waxay tahay DRC mashaariicii gacanta ay ku hayso degmada Salaxley in qaybta kale ee abaarana intay abaaru taagan yihiin ku soo kordhiso taasaan ku soo kordhin lahaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dadkan benefit ka faa'iideysanay mashruucan sida wanaagsan ay u manage gareeyeen oo maamulaan ay lacagaha isugu wareejiyeen kulli waa takantay aaminada inta lag inay hay'addu ku soo hirato degmadii kulli waxaan kala ugu dirayaa inay si kordhiyaan oo maadaama dadku kulli u baahanay lacagtaas inay ka qayb qaataan u baahanay inta ka sii badan yihiin degmadana mar walba si balaaranayso dadkeena si badanayaan in mashruuc laftiisa ku dhisana waan iyadana waan farila aad iyo aad buu mahadsantiin mar labaad mar saddexaad ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shaqeynayay ilaa 19 ilaa maanta 26 tahay waxyaabo badan oo wax qabad fara badan degmada ka qabtay haday baraagii tahay haday farsamada gacanta loo qalin jabinay tahay haday cagafiyadii tahay haddii ay tahay 170 qof oo dadkii naafada dadkii faaligu ku dhacay dadkii baarleyska ahaa oo $130 ay siiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qodobka DRC waa hay'adda kaliya wax qabadka degmadu 24 hours ay taageen toddobaadkii mar bay yimaadaan imikana qolada inoo socota DRC mashruuceedu wuxuu ku saabsan yahay lacagooga amaahdaasi la isku celinayay iyo dhaqaalahoodu sidoo yahay dadka danyarta in kor loo soo kiciyo lacago amaah oo kala imika oo rajeynaa way sugeynaa barigo horna ilaa $300 boo amaah ay bixiyeen oo la isku celinayay qof lagu wareejinayay imikana tiibaan ka sugeynaa xaaladan abaaraha taagana ee dadii xoolo maanta dadku ay jilicsan yihiin qof walba aqal lagu garanayaa heeraabta imika dalku marayo xagga abaaraha taana baaqeeda waxaan u diraynaa DRC inay nagala qayb qaadato xaaladda biyo la'aanta ee deegaanka Salaxley ugu horeyn Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa hay'adda DRC oo halkan dadka danyarta ah ee ka soo jeeda degmada horena ugu qaybisay lacago cash flowina lacago wareego iyagu isku wareejiyaan hadeerna lacagihii iyo wareysigoodii wada runtii DRC sida uu sheegay gudoomiye Xasan Nuur waxa weeyaan hay'adda kaliya si joogto ah uga howlgasha degmada Salaxley waan uga mahad celinaynaa runtii DRC hadda waxaan ka soo rawaxay imaka caws ay beerisay DRC ku beerisay degmada maadaama ay maanta tahay maalinta calafka xooluhu meelna aan laga heli karin degmada $100 hadaad haysato maanta degmada meel aad ka soo iibsato hal kg calaf xoolaad ma jiro iyadoo taa ka duulaysa DRC hadda waxay 20 qof bay training ugu wadaa halkan riiga Salaxley in cawskii lagu beero oo laba nooc ah si mustaqbalka aan u dhicin caws la'aan ama arinta looga baxo
runtii hay'adaha kale waxaan ugu baaqaynaa inay degmada degdeg uga soo hawl galaan deegaanku 27 tuulo degmada Salaxley uu ka kooban yahay 27 kaba maanta xaalad emergency ku jira haday tahay biyaha iyo haday tahay calafka xoolaha iyo haday tahay raashinka dadku ay quudanayaan intaba sida daraadeed hay'aduhu waxaan leenahay sida DRC dan yarta ay wax ugu qabanayso wax ugu qabtaan degmadana emergency-ga gashayna degdeg uga soo hawl galaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa teamka ka socda DRC iyo guddida horumarinta degmada Salaxley la shaqeysay hay'adda DRC oo mar kasta dadka dan yarta ah ee xooga saara inay kor u soo qaadaan halkan waxaan uga mahad celinayaa hay'adda DRC oo muddooyinkii dambe degmada aad ula shaqeysay sida aad sheegteen DRC waxay ka shaqeynaysaa qaybo fara badan oo degmada kamid ah maantana waxa lagu jiraa xilli aad iyo aad u adag lacagaha ay bixiyeen siiyeen ganacsatada yar soo koraysa insha Allah bismillaahi kariim haday ay kordhin karaan intii la ugu daran iyadoo muhiim degmadana waa degmo balaaran ilaa 30 oo qoys baa degan marka loo eego lambarka aad bixiseen lambar fara badan runtii dadkuna waa kuwa ka mahad sheeganayo welina wax khilaafo meynaan aragooda sidii bay u socotaa taa aad baa ugu mahadsantiin halka ka abaarteen iyo qaybaha kale wadaanba xaqii kale abaarta xilligan aynu ku jirno waxa ka qaban kartaan haday biyo tahay iyo haday calaf tahay iyo haday raashin tahayba